marka aan ku soo laabano ninkii ahaa Raila Amolo Odinga Maxamuud wargeyska The Standard shaashada hadduu inoo soo saaro I'm still in the game weli waan is haysta ayuu leeyahay Raila Odinga marka I'm still the same fighter aan iraahdo yani weli haliyagii la yaqiina oo maaragtay wixiisa soo dhacsan jira ayaan Railihii baan ahay wax isbedel ma laha marka waxaad moodaa horta wareysi dheer ayuu siiyay wargeyska The Standard wuxuu yiri anigu meeshan sagaashamihii 90s meeshan taagna ayaan weli taaganahay in shacabka Kenyaanka loo turo mooyaane wax kale aan aaminsanahay ma laha marka laakiin hadalka ayaa wuxuu yiri kaliya waxa laga yaabaa hadeertan waxa isbedelay waagi hore dawladaha runtan u sheegi jiray laakiin hadda dawladii baaban ku dhex jiraaye way dhageysataa marka ma dadka ma waxay banaan ka soo turjumay gudahan ka sheegay marka dadka hadii ay waayeen bil mathala mudaharaad iyo dhagax la tuuraayo iyo maaragtay askar dad meel ka cayrinayso iyo hadii la waaye waxay dawladii ayaa dhigaha dawladda dhiga nugeyl aan caadi ahayn ayaan ku haystaa koodhe and sidoo kalena wuxuu yiri aniga iyo William Ruto isku meel magaceena laguma soo qaadi karo sababtoo ah dadka dalkan dad baa u soo halgamay soo agartama oo u soo dhiiday u soo daalay oo xabsi lagu tuuray koodhe ninkanna isagana wax uu yahay malaha waa sidoo Raila hadalka u dhigaayo hadeesan ka tagi waynin waa nin inta badan ka soo horjeedo wax allaale wixii isbedel ahaa dalkan lagu sameeyay kulli taariikh ahaan buu soo qaadanaya mar uu referendumka ka soo horjeeday iyo xaalad lamid ah balse laakiin waxaad moodaa xitaa sawira ayaa shalay baraha bulshada Raila Odinga oo lagu sii daayay bahasha ilmaha tiagas marka taageerayaashiisa ay waxay leeyihiin William Ruto alaabta noocan weligiis ma soo marin marka inuu maanta yiraahdo ana hasla ah ana raba maaragtay inaan isbedel ku keeno dalkani wax kala soconayo ma laha Raila wuxuu soo maray in indhaha tiigaas laga shubo sida dadka shacabka dad shacabo isaga meel ka hadlaya la dhibaateeyo waxaas isagu soo maray haddana Raila Odinga hadii aad fiirisid wareysigaas ayaa wuxuu aad dhibciye uga soo qaatay aabihii Jaramogi Oginga Odinga aabihiis ayaa markii ay siyaasad ahaan ku kala wacdeen isaga iyo Uhuru aabihiis ayaa aabihii baa waraaq qoray wuxuu u qoray Mzee Kenyatta wuxuu yiri dhageyso ima qalmayso in xafiis weyn maaragtay aan metelo ama aan ka arrimiyo hawl aan hayona malaha cashuurtii shacabkana maaragtay in mushahar weyn la igu siiyo oo gawaari iyo maaragtay la igu wado ima qalmee anigu waan iscazilay marka Raila wuxuu leeyahay ninkan hadduu yahay nin maaragtay mowqif iyo wax ku taagan sidii aabaha sameeyo waayahay waxaad moodaa ereygaas uu soo noqday iscazisha oo dad badan baa ku celcelinayo xitaa Francis Atwolo kamid dad badan baa arintaas jeclaysan lahaa maanta hadii ay dhacdo Ruto gaashaan inuu ka dhiganayo Raila marka aan fiirino Raila Amolo Odinga heshiiskan uu la heshiiyay oo handshake ama iskacan qaadka madaxweynaha dalka uu la heshiiyay iyo maanta inuu systemkii ku jiro dawladii uu ku dhex jiro markii laga tago nin dadka shacabiyad badan wadankan Kenya kule dawlad kasta mucaarad ku soo ahaa aabihii baa mucaarad soo ahaa reer mucaarad ay soo ahaan jireen xuquuqda dadkan u doodnaa bay dhihi jireen way soo socotay maanta halka uu taagan yahay marka aan fiirino qorshihii BBI ee watay oo maalinba geed soo hoos fariisanayo oo muddada waxa weeye daaha laga rogi doonaan loo weyn madaxweyne ku xigeenka iyo isagu loolanka ay wadaan oo moodo inuu Uhuruna isooga dhaxbaxay oo labadooda aad moodo inay attack wadaan markii aan fiirino isu soo baxyada ee gobolka xeebta ku qabanayeen oo kale muddooyinka u dambeeyay ninkii la oran jiray Raila ma laga yaabaa kalsoonida dadka shacabka Kenya oo dad badan ay aaminsan yihiin kadib heshiiskii uu dhumiyay ay leeyihiin ma laga yaabaa inuu soo ceshado sida uu wadada hadda ku socdo oo ah taageerada uu madaxweynaha taageerayo
iyo dhinaca kaleeto oo BBI iyo qorshihiisan oo xitaa dadka qaarkood ay qabaan buurta Kenya ama Mount Kenya dadka ka soo jeeda iyo Central Kenya bartamaha wadanka ee madaxweyne ku-xigeenka xaafadda uu ka soo jeeda ma taageersano marnana taageeri mahayaan Raila ay aaminsan yihiin isaga waxa weeye dhadhanka iyo irsaaqada ugu jirta meeshan ee siyaasadeed ama dhaqaale waxay tahay baa ilaa hadda dadku ay fahmi laayeen ma horta su'aal aad u adag weeyaan laakiin haddii aad fiirisid si wad soo wad horta waqti baa weli dhiman haddana haddii aad fiirisid wargeyska The Star ayaa subaxan wuxuu soo qoraya maaragtay in guurtada kukuyada ayaa lagu wadaa in odayaasha in dhowaan ay ku caleema saaraan Raila Odinga dhulkiisa Bondo meeshu ka soo jeedo ayay kale u safri doonaan xaggaas bay dhihi doonaan Raila Tosha soo agartaba marka si kaftan ahaanna waxay leeyihiin dadka Ruto taageero adeero markii lagu caleema saaro kukiyo dhan ay ku aqoonsato doorashada marka ku guuleysatid natiijada waxba dood ha ka keenin you know waa hadal maldaahan oo lagu wado war xitaa haddii isaga laftigiisa u guuleysto laga yaabo haddana doorashada in uu ka keeni doono maaragtay maadaama uu ahaan jiray wax dhaqan u ahaa inuu doorasho kasta ka keeno si fiican runtii haddii aad u fiirisid waxa laga yaabo waxan waa qofkan bini aadan weeyaan self actually yani wax walba waan soo qabtay wadankii waan u soo halgamay ra'iisul wasaare waan soo noqday xildhibaan waan soo noqday wax walba waan soo noqday wariga madaxtooyada baa ii dhiman laga yaabaa isaga hamigiisa inuu saas yahay haddii haddana taariikh ahaan loo fiiriyo aabihiis iyo siduu u rabay kursigaas marka ma sidii maaragtay riwaayadii qabiya mi ahayd markoo un madaxweynaha la ii dhaho iyo something mar wax un madaxweyne dhaha ayaa laga laakiin one thing for sure is hadartan waxaad moodaa dadka la socdo siyaasadda dalkan waxay leeyihiin natiijada ka soo bixi doonto Msambweni doorashadan ku celiska ee isku haystaan maaragtay Ruto iyo Raila halkaas ayaa waxoogaa la dhihi doonaa aleelehe hebel akona watu wayahay bal waan arki doonaa halka uu ku dambeeyo arinta qorshahaasi la xiriira Raila Omolo Odinga iyo ku-xigeenka madaxweynaha oo iyagu campaign ku wada jira haddii aan u imaano county governmentska waxaad moodaa maaragtay waxoogaa dhaqaale xumi ayaa jirtay dhowr bilood arrintaasna kole waxaa sababtay ismariwaagii ka jiray aqalka sare ee senatka habkii iyo qaabkii maaragtay loo kala qaybsan lahaa lacagaha dalka marka waxaad moodaa guddiga senatka oo approve gareeyay lacag dhan 79 bilyan ayaa sidoo kale waxaa qalinka ku duway madaxweynaha dalkani marka waxaa lagu wada from next week wax allaale wixii maaragtay waa muddo dhowr jeer baa xitaa Wycliffe Oparanya oo ah gudoomiyaha isu taga ururka barasaabiyada ayaa wuxuu yiri saan hadiina laga dan weyno dawladaha dhan waan xireynaa oo maaragtay shaqaalaha xaafadahoon u direynaa sababta dadkii wax la siiyo lama hayo marka laakiin waxaad moodaa from next week in dadkii contractka ama dadkii deemaha ku lahaa county governments in waxoogaa maaragtay lacag ay meesha ka helaan markaan fiirino muddooyinkan musuqmaasuq iyo dhibaatooyin kala duwan oo county government arrinta COVID-19 oo dawladda dhexe ay kaga cabanayeen oo lahayn waxaan doonaynay ma aanan ka helin bal mushaaraadka shaqaalaha iyo wixii aan shaqada ku wadanay baan weynay dawladda Uhuru Kenyatta ama xukuumadda hadda jirta waxay gacan bidixaysay county governments ama countiyada ama ismaamulada dalka waxaabaas oo dhan hadda marka aan fiirino arrintan siyaasaduna inay saameysay baad moodaa oo wadanka ka jirto oo cidii waxa weeye warkeeda cadeyn weyda iyada lafteedu khatar bay ku jirtaa muddooyinkan oo is ilaalin badan baa jirto waxaan ognahay barasaabyo badan oo xitaa xalalkoodii kuwa hadda maxkamadda daba socdaan oo la haysto halka marka aan fiirino natiijada hadda lacagahan soo baxday shacabka Kenyaanka ahaa ama COVID-19 ama wax ka sii horeeyba caqabadihii haystay iyo hadda xaaladda maanta ay ismaamuladu ku jireen laga yaabaa inay ka bixiso mise waxa ka weyn oo dhaqaale dheeri ah bay u baahan yihiin oo dhaqaale dheeri waxan waxa reer waama hadaan nahay waxaan dhahnaa dhaarama qoys yar weeyaan wax hagaal dhaaramaha lagu qoysanayo mooy
waxa way dhibaato weyn ayaa runtii dalka ka jirta markii loo fiiriyo dhaqaale ahaan sidoo kale waxaad moodaa biilka markuu bato dadkii mushaharka kugu lahaa dadkii qandaraasyada waxa weeyaan xitaa adduun dhan haddii hal mar lagu soo furo waxoogaa inakuwa ni pesa kidogo marka naruuro kale ilaahay inuu soo dejiyo mooyaane waayahay waxbarashada ugu dambeyntii waxbarashada horta waxbarashada waxaad moodaa maaragtay isniinta oo dhowr maalmood ka dhiman ayaa lagu wadaa iskoolaadka in dib loo furo laakiin waa fasalka form 4 fasalka grade 4 iyo 8aad laakiin amar maxkamadda ka soo baxay ayaa wuxuu ahaa ka hor iskuulka intaan la furin magoha wasiirka maaragtay waxbarashada waa in uu la kulmo saamileeda maaragtay waxbarashada waayo waxyaabo badan ayaa maaragtay la isku haystaa oo qabiya ah haddii aad fiirisid galbeedka dalkani sida Nyatike amal Nyando Plains robab xoogan ayaa ku da'ay almost isu jir 40 schools ayaa yani hadartan wax arday aadi karo malaha daadad ba'an ayaa jira iskuulaadka qaarna dadkii ka soo barakacay daadadkaas ayaa meesha degan marka waxaad moodaa waxyaabo badan iyo sidii loo kala qaybsan lahaa qaraamaadka ku baxayo maskan la xiranayo iyo maaragtay sanitizer yani waxyaabo badan ayaa maaragtay weli la isku haysta sidoo kalena waxaad moodaa dadka qaar baa waxay leeyihiin war tiradan covid-19 oo cirka isku sii shareerayso miyay keeni doontaa in dadka qaar ay xitaa kala baqaan ciyaalkooda inay iskoolaadka maaragtay dib u celiyaan waayahay aad baad mahadsantahay cabdi waxaa xusid mudan sidaas si lamid ah in ay iskuulada sida gaarka loo leeyahay ay iyaguna wasaaradda waxbarashada codsi u direen oo ay leeyihiin sida systemka iyo qaabka wax loo furayo iyo nidaamkii waalidiinta iyo caruurta iyo waxbarashada la isu waafajin lahaa waxaa loo baahan yahay inay wasaaradda waxbarashada wax ka tiraahdo iyada oo wasiirka waxbarashada ee dalka Professor George Magoha uu yahay ninka dadka inta u badan ay eedeynayaan oo xitaa laleeyahay mugdi ayaa ku jira talaabooyinka dhinaca waxbarashada ee ilaa iyo hadda la qaaday